Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada ST Something. Haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkan, fadlan subscribe saar mahadsanid. Haddaba asxaabay, barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka loola soo dego video YouTube-ka aan la soo degi karin oo kale. Waxaa jira muuqaalo aan la soo degi karin marka aad YouTube-ka gasho. Marka qaabkee ayaad ula soo degi kartaa muuqaaladaasi? Waxaan ku tusi doonaa laba qaab aad ula soo degi kartid. Aanu bilowno barnaamijkeena. Asxaabay, inta aan barnaamijkeena aanu bilaabanin, waxaan idin sameynay group-kaas oo lagaga caawin doono waxaad ka caawinaysid dhinaca tiknoolajiyadda, haddii noqoto YouTube, haddii noqoto website, waxaas oo dhan. Haddaba haddii aad doonaysid inaad group-ka kusoo biirtid, waxaan idin dhigi doonaa description ama comment-iga. Dan aanu guda galno barnaamijkeena maanta. ugu horreyn waxaad tagaysaa YouTube. Kadib markii aad tagtid, waxaad qoranaysaa videoga aad doonaysay ama muuqaalkii. Markaad muuqaalka aad qoratid oo aad heshid muuqaalka aad doonaysay, hadda markii aan muuqaalkan oo kale ku dhufano, waxaad ujeedaa in uusan noo galan in uu soo dego. Haddaba markii ay sidaa tahay, waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku taalo share ay ku taalo. Dan markii aan ku dhufano kadib, waxaad kasii dooranaysaa haddii ay feedmail ku jirto, feedmail ayaad ku dhufanaysaa oo tabtaas ay share ku dhaamaysaa. kadib saas ayaad kusoo dejin kartaa. Taasina waxay ahayd qodobkii koowaad. Haddaba qodobka labaad waxaad galaysaa Google Chrome. Marka Google Chrome la soo kacdid, waa website-kaas ayaad ku qoraysaa y2mate.io. dan saas ayuu ku soo baxaya website-kii cashar hore oo kasoo sharaxnay. Haddii aad doonaysid inaad daawatid, xagga sare ku dhufo ee kuu muuqata. kadib muuqaalkii aad koobi soo tiraahdaa baasi ku dhacaysa xaggan start aad sii riixaysaa. dan markii aad ku dhufatid start, waxaad ujeedaa inuu ku soo baxay inta MB aad kula degi kartid muuqaalkan. waxa ugu hooseeya 720 oo quality-giisu fiican yahay, 480 iyo 360 hadba kaa jeceshahay. kadib markii aad download dhaadid, xaggaas ayuu video kugu imanayaa. waadna ku mahadsantahay daawashada daawatay muuqaalka. haddii aad ka heshay like, haddii kalena dislike. mahadsan.